KNN waa maalin talaadaha 12 bisha 7 ee July sanadka 2022 waa maalinta 193 ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan 172 cisho hadii la idmo dhacdooyinka maanta oo kala dunida ka dhacayna waxa kamid ah maanta oo kala sanadkii 1967 madaxweynihii xiligaasi ee Soomaaliya Cabdirashiid Cali Sharmaake ayaa ra'iisul wasaare u magacaabay Maxamed Ibraahim Xaaji Cigaal Allah u wada naxariiste maanta oo kala sanadkii 1993 diyaarado dagaal oo Mareykan ku lahaa ayaa duqeyn ay ka geysteen guri ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir waxa ay ku dileen in ka badan 70 ruux oo rayid ah dadka duqeynta maalintaas waxyeelada ka soo gaartay waxa kamid ah wariyaal iyo dad kale oo rayid ah xiligaasi ciidamada Mareykanka oo qayb ka ahaa howlgalkii qaramada midoobay ee UNISOM waxa ay magaalada Muqdisho kula dagaalameen ciidamada daacad u ah Allah u naxariiste Generaal Maxamed Faarax Ciidiid maanta oo kala sanadkii 2009 ruux ayaa ku nafwaayay dagaal ka dhacay xaafado ka tirsan degmooyinka Boondheere, Shibis, Cabdicasiis iyo Kaaraan ee gobolka Banaadir dagaalkaasi waxa uu u dhaxeeyay dawladii ku meel gaarka ahayd oo taageero ka helaysay ciidamada Midowga Afrika iyo ururadii Xisbul Islaamka iyo Al-Shabaab oo isku dhinac ahaa maanta oo kala sanadkii 2010 Al-Shabaab ayaa qarax ay ku nafwaayeen kontomeeyo ruux ka geystay goob ciyaar kubadda cagta ah lagu daawanayo oo ku taalay magaalada Kampala ee xarunta dalka Uganda maanta oo kala sanadkii 2019 weerar isqarxin ku bilowday ayaa Al-Shabaab ay ku qaadeen hoteelka Cascase ee magaalada Kismaayo waxaana ku geeriyooday dad badan oo ay ku jirtay Allah u naxariistay wariye Hodan Naaleeyo oo ahayd gabar wariye ah oo ka timid dalka Canada maanta oo kala sanadkii 1909 ciidamada hubeysnaa oo Syria ka baxay ayaa qabsaday caasimadda dalka Liibiya ee Tripoli ugu dambeynna maanta oo kala sanadkii 1941 diyaarado dagaal oo Jarmal ku lahaa ayaa duqeeyay markii ugu horeysay caasimadda dalka Ruushka ee Moscow guud ahaan waa naga inta xubintii maanta oo kala markaan aan dib idin kugu celiyo Burhaan Diini iyo qaybaha ka harsan barnaamijka kulanka